dagaal culus oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo caawa ka socda xuduudda oo gobolka galguduud la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida ra'iisul wasaare Roble oo Dubai kula kulmay madaxda ugu sarreysa dalka isutaga Imaaraadka Carabta khilaafka u dhaxeeya hoggaanka ugu sarreeya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo sii xoogaystay booliiska Kenya oo faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay magaalada Mandera ee dalka Kenya maxkamadda sare ee Itoobiya oo amartay in la soo xiro ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Haile Mariam doorashada 6 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ka dhacday magaalada Jowhar iyo koox hubeysan oo 10 ruux ah ku dilay waqooyiga Nigeria وهابينمو إسنين أي سي بحيث وثلاثة يسوق ليسو تاريخ وحيكو بيغن تاهي سودن يكود بيش كوباد سنة كالبادو كوني لبي لباتن كوركاس ودن عاو حالة ديارة وريهن عبد الرشيد إبراهيم علي وما سنتهي ورسو سارها وركاهبين علي السحيفة فافانا ديرادا يا كسو بحياه دقال علوس او لو مليشيات عاوة كسوعدا حدودكا او قبلكا قلقدود لو داغو دولة ديغانكا الصوماليدا ورينا حسن أحمد محمد يا وركنا ديارة dagaal xoogan oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo ka soo kala jeeda magaalooyinka Balambal iyo Gurceel ayaa haatan ka socda deegaanada dhanka galbeed kaga beegan magaalada Balambal ee waqooyiga gobolka Galguduud una dhow xuduudka uu gobolka Galguduud la wadaaga dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya dagaalkan u dhaxeeya maleeshiyaadka dadka deegaanka ayaa imaaday kadib markii maanta maleeshiya hubeysan oo ka soo jeeda magaalada Balambal isla markaasna wadata gadida dagaal ay dad xool dhaqaata 4 qof ay ku dileen aaga lagu dagaalamayo sidoo kale halkaas ku gubeen in ka badan 15 guri oo dad shacab ah ay lahaayeen sida ay keenan u sheegeen dadka deegaanka waxa intaas kadib halkaas ka bilowday dagaal xoogan oo dadka deegaanka dhaxmaray waxayna isku adeegsanayaan hubka noocyada kala duwan dadka deegaankaasi ayaa sheegay in dagaalka haatan uu socdo isla markaasna qasaare isku jirdhay mashir dhaawac uu ka dhashay laakiin si ay saacadii kale intuu leeyahay qasaaraha ka dhashay dagaalka maadaama dagaalka wali u agaas uu ka socdo magaalooyinka Balambal iyo Gurceel waxa la geeyay qasaare dhaawacyo u badan kuwaas wax ku soo noqday dagaalka dadka deegaanka u dhaxmaraya deegaanka Haraare oo qiyaastii 50 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Balambal ee waqooyiga gobolka Galguduud deegaanka Haraare ee gobolka Galguduud waxa dhawaan isugu tagay dad xool dhaqaata ah oo ka soo kala jeeda magaalooyinka Balambal iyo Gurceel ee gobolka Galguduud waxaana dadkaasi in muddo ka dhex taagnaa colaad soo jireena Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Cadaad ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa Dubai kula kulmay madaxda ugu sareysa dalka isutaga Imaaraadka Carabta wariyahana Cali Cilmi Salaad ayaa warkana diyaara ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta magaalada Abu Dhabi kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka isutaga Imaaraadka Carabta ahna ra'iisul wasaaraha dalkaas Maxamed bin Rashid Al Maktoum Roble iyo wafdi uu hogaaminayo waxay shalay gaareen Abu Dhabi halkaas oo maanta ay ka bilaabeen kulamo ay leeyihiin madaxda isutaga Imaaraadka Carabta labada mas'uul ee maanta kulanka yeeshay ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo kan iskaashi wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Xaaji oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta uu la yeeshay ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha Imaaraadka Maxamed Al Maktoum maanta oo taariikhda 31 waxaan la kulannay madaxweyne ku-xigeenka isla markaana ah ra'iisul wasaaraha wadanka Sheekh Rashid Al Maktoum labada mas'uul waxay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeyay labada wadan sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa wasaaraha wuxuu kaloo warbixin ka siiyay xaaladda abaaraha ba'an ee wadanka ka jirta wuxuu nooga mahadceliyay shixnadii ay wadanka u soo direen wuxuu kaloo ka codsaday in ay wadanka gargaar kale oo dheeraad ah ay u soo diraan wasaaraha waxa kale uu wasaaraha wadanka Imaaraadka Carabta kala hadlay arrimaha ganacsiga iyo sidii loo xoojin lahaa sidii loo furi lahaa xoolaha wadanka Soomaaliya oo muddo badan xayirnaa sidii ganacsatada loogu fududeyn lahaa imaatinka wadankan iyo viisooyinka iyo dalku galka wadankan sidii loogu fududeyn lahaa wasaaraha wadanka Imaaraadka dhankiisa wuxuu ka mahadceliyay sida wanaagsan booqashada uu wadanka ku yimid ra'iisul wasaaraha wuxuu kaloo ballan qaaday in xiriirka labada wadan uu sii xoojin doono in abaaraha Soomaaliya ku habsadanay wax weyn uu ka qaban doono in ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo furitaanka xoolaha wadankana oo wax ka qaban doono shirkaas wuxuu ku soo gabagaboobay garad isfaham 3 sano kadib Roble ayaa noqonaya mas'uulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya matalaya kaas oo booqasho ku tagay Imaaraadka tan iyo February 2018
xiriirka u dhexeeya muqdisho iyo abuudubay ayaa xumaaday kadib markii hay-adaha ammaanka Soomaaliya garoonka aadan cadde ay ku qabteen lacag gaaraysa ku dhawaad 10 milyan oo imaaraadku ay sheegeen inay u wadeen safaaradooda Muqdisho. dad badan ayaa qaba in imaaraadka carabta uu dana gaar ah ka leeyahay doorashooyinka Soomaaliya iyada oo dhisaysa musharax gaar ah iyo waliba shakhsiga ay la rabto inuu noqdo madaxweynaha soo socda. وماسنتها ورينا علي علمي سلا khilaafka u dhaxeeya hoggaanka ugu sareeya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa sii xoogaystay. wariyana Hanad Maxamed Karaama ayaa warkan la diyaara. khilaafka u dhaxeeya guddoonka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa sii xoogaystay kadib kulan ay maanta magaalada Muqdisho isku yimaadeen xubno ka mid ah xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Shiino ay sheegeen in xilkii ay kaga qaadeen gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab. kulankan maanta magaalada Muqdisho ka dhacay oo isku yimaadeen qaar ka mid ah bahda ciyaaraha dalka sida qaar ka mid ah gudoomiyaasha xiriirka kubadda cagta maamulada dalka ka jira iyo agaasimayaal ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo xubno ka mid ah guddiga fulinta ay ku sheegeen in kulankoodu maanta uu ahaa kulan weynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyagoona sheegay in codeyn la sameeyay kulankan xilkii looga qaaday gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab. xubnahan ka tirsan guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee sheegay in xilka ay ka qaadeen Cabdiqani Saciid Carab ayaa sheegay in xilka qaadistooda ay timid kadib markii sida ay sheegeen ay ku eedeeyeen Cabdiqani Saciid Carab ku eedeeyeen musuqmaasuq iyo sidoo kale ku tarkifal awoodeed muddadii uu joogay xiriirka kubadda cagta. sidoo kale waxay sheegeen in gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay u doorteen Cali Shiino. waa kan Cali Shiino oo la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in xilka sidaas looga qaaday Cabdiqani Saciid Carab. waxaa loo kala joogaa 14 kooxood oo kooxaha 24 ka mid ah. waxaa jooga 4 maamul goboleed iyo waxaa jooga 5 urur intaba goob joog waayay agaasimayaashu ku maasan yihiin. natiijada codeyntan ku dhawaaqaynaa 23 qof ka soo qayb gashay. 23 kooxood wax xumaaday ma jiraan. 23 kooxood way codeeyeen in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 31 Janaayo 2021 31 Janaayo 2022 ayuu ku ekeed cod gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta Cabdiqani xilka sidaas uu ku waayay waana ansax. dhanka kale xilka qaadistaani ayaa waxa qaadacay gudoomiyaasha 14 koox oo ka mid ah kooxaha dalka ka dhisan oo iyaguna kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gudoomiyaha xilka laga qaaday Cabdiqani Saciid Carab. Cabdiqani Saciid Carab oo isna dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in warka ka soo yeeray xubnaha ka mid ah xiriirka kubadda cagta Soomaaliya uu yahay mid waxba kama jiraan ah. waxa uu sheegay in shirweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya uusan ahayn midka maanta dhacay. maantay oo ay bishu tahay 31 bisha January sanadka 2022 waxaa ka aragnay baraha bulshada shirweyne ay qabteen dad ka mid ah xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayna ugu yeereen shirweyne aan caadi ugu yeereen kaasoo qaabka ay u qabteen iyo sifaha ay u mareen iyo wadada loo maray ay kulligood baalmarsan yihiin xeerka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya baalmarsan yihiin. intaasba looma marin. waxaa la abaabulay shirweyne aan caadi ahayn oo sidiisaba u muuqda ahna maadaama uu wixii xeerka iyo dastuurka uu waafaqsaneen wuxuu noqonayaa nidaam fawda ah oo kubadda cagta dalka sii gelinaya bahda kubadda cagtana ay u tahay nasiib darro in la abaabulo shirweyne aan sharci ahayn. aad ayaan macnaha uga tacsiyeenayaa ugana rabaa inaan u sheego bulshada bahda kubadda cagta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay sifahaas ay sharci darro tahay. aadna aan uga xunnahay in xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo soo jiray muddo aad u dheer maanta in uu anagoo joogno sanadka 2022 in lagu hogaamiyo waddo mugdi ah oo sharci darro ah waxaan aad uga xunnahay. Cali Cumar Xasan Cali Barre waa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Hilac oo ka mid ah kooxaha horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya. warbaahinta ayuu akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen gudoomiyaasha 14 kooxood oo ka dhisan dalka kaasi ay kaga soo horjeesteen xilka qaadista la sheegay in lagu sameeyo gudoomiye Cabdiqani Saciid Carab. gudoomiyaasha naadiyada dalka waxay bulshada Soomaaliyeed ee isboortiga u cadeynayaan qodobada hoos ku xusan. 1 in uusan jirin shirweyne xiriir oo maanta ka qabsamo hotel magaalada Muqdisho ku yaal. kala fadhiga shirweynahana uu mar walba yahay xarunta xiriirka kubadda cagta. in kulankaas aan ka maqalnay saxaafadda uusan haysan sifo sharci ah oo uu yahay mid baalmarsan dastuurka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta
jadwalka ugu dastuurka xiriirka kubadda cagta jadwalka ugu jiro ajandihiisuna xubnaha aan lala wadaagin maamuuska uu lahayna aan la siinin in la joojiyo wax walba oo wax u dhimayo horumarka iyo sumcadda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya in shirweynaha xiriirka lagu qabto waqtigiisa iyadoo la ilaalinayo dastuurka lagana fogaanayo wax walba oo kala geeynayo bahda ciyaaraha dalka gaar ahaan kubadda cagta khilaafka iyo sidoo kale muranka u dhaxeeya guddoonka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa soo jiitamayay 3 bilood ee la soo dhaafay 12 bishii December ee ka soo gudubnay sanadkii tagay 2020 ayaad markii sidaan oo kale xubno ka tirsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho oo hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Shiino ay sheegeen in shaqadii ka joojiyeen Cabduqani Said Carab iyadoo ay xusud mudan tahay in xilligaasi shaqo ka joojintaasi ay qaadaceen gudoomiyaasha in ka badan 15 kooxood oo dalka ka dhisan muranka daba dheeraada ee ka taagan xiriirka kubadda cagta dalka ayaa salka ku haya khilaaf la sheegay in markii hore uu soo kala dhex galay Cabduqani Said Carab oo isagu ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee maanta la sheegay in xilkii laga qaaday iyo ku-xigeenkiisa Cali Shiino waxaan haatan muuqda in khilaafkan uu dib u dhigay howlihii xiriirka kubadda cagta dalka